David Maraga marka aan fiirino hadal soo jeedintiisa oo ah madaxweyne baarlamaanka kala dir hadalkaas siyaasadii uu dab ku sii shiday waxaadna moodaa siyaasadda maalinta ka dambaysa say u socoto foolkaano kale uma meel ka qarxayso oo waxa weeye meel kale uma sii neefsanaysa marka aan fiirino sida wargeysyadu shalay subaxii boogooda koobaad ku soo baxday oo kaleeto hadalka Maraga ma bam loo soo dhiibeyba maseefta BBI ba wargeysyada boogooda ku reeshada ku daabacnayd marka aan fiirino marka adiga aragtidaada marka aad fiiriso ma isleedahay David Maraga qorshahan uu wato waa qorshe ay gadaal ka riixayaan Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo qorshihii BBI loogu gogol xaarahayo cadaadiskana lagu sii saarayo baarlamaanka inaga oo xusuusan hadalkii madaxweynaha ee ahaa cid kasta oo iga hortimaaday waxa weeye iyada istaqaana oo hadalkiisina madaxweynaha uu ahaa marka hadalka soo jeedinta xaaladda maanta lagu jiro arintii BBI oo hakatay qoraaladaas ahaa BBI ma waxa laga dhiganayaa hadalka Maraga ma safety BBI ba halkaas bal aan ka fiirino maxaa lagu micnayn karaa hadal soo jeedinta xilligan ee David Maraga horta waad ogtahay David Maraga iyo waliba Supreme Court-ka iyo madaxweynaha aad bay kala fogaadeen waxyaalo badan bay ku kala dagaalkii doorashadii bay ku kala fogaadeen tii dhaqaalaha ay ku kala fogaadeen waxaan ognahay Chief Justice hadda soo mar television-ka ku canaacalahay oo hataa baabuurtiisa shidaal waay xafiisyadii dhaqaalihii laga goostay wali yasaya wali gacan bidaxaynaya inta soo gor buuqahay of course nasiib darro waay horta kow inay meeshaas ay gaarto maxaa yeelay maxaakiimta waa madax bannaan wadan aan sharci ku soconin oo maxaakiimtada ay madax bannaan ahaynna wadan burburi waayo marka saddexdan qodob oo dawladda ay ka kooban tahay maxaakiimta baarlamaanka iyo xafiis madaxtooyada saddex oo isla wada shaqeynaysa oo laakiin qof kastana madax dhinaciisu awood badan yahay oo madax bannaan waliba midda muhiimka ugu oo qodob ahaan marka la dhaha midda muhiimka ugu waa waxa waaye maxaakiimta waa cadaaladda maadaama haddii madaxtooyada wax ka dhacaan iyadii loo soo noqon sharci dejinta haddii wax ka dhaco iyadii loo soo noqon waa wadanka koowaad oo Afrikaanka iyo wadamo badan oo hataa maxaa la yiraahdaa ummadda kale maxkamad oo rogta doorasho Kenya ayaa ugu horeysay Afrika marka la dhaha arinta iyada maxkamadda Kenya sumcad u yeeshay dadka siyaasiyiinta taas ma rabaan ayagana waa argoosanayna oo kale mise dibaan hadana u sii habeynayna ayaa la sameeyay tan kale hadii qofka Chief Justice meesha fadhiyo koow asaga wuxuu leeyahay opinion asaga shakhsi ahaan ra'yigiisa ayuu hadda dhibtay ma ogay maxkamadda inay fariisatay oo Supreme Court asaga madaxweynaha Supreme Court ahaan shakhsi ahaan ayuu arinta iyada ayuu soo jeedin buu dhibtay ayuu madaxweynaha waraaq u qoray in baarlamaanka la kala diray laakiin ma aha inay Supreme Court ay fariisatay arinta iyada go'aan ay ka gaartay haddana saad u aragtay arintii maxkamad hoose ayaa arintii joojisay oo haddii ay arintaas Chief Justice u sheegay ay dhacdo meeshii lagu gaaro 12 October 22 beri waxa ugu badan oo la aqbali karo waa 22 beri waxa ugu yar waa 14 beri marka ka soo xisaab maalintii arinta iyada ra'yiga asdibti ilaa iyo 22 beri marka la October 12 meeshii la gaaro waxa waaye waa in doorasho la aado maya inay dadkii baarlamaan ku jiri iyo senad ku jiri sharci darro ay meeshii ugu jiraan laakiin rag badan oo garaaqoon oo wadankan laga yaqaan ayaa arinta iyada aad ugu kala fogaaday opinion ahaan marka la ku kasta suu arka qolada dhinaca sharciga garyaqaan Axmed Naasir iyo ninka hadda madaxweynaha LSK-ga aad bay ugu kala fogayeen arinta iyada marka qof kastana hadee subu u fasiraya sharcigan hadee wuxuu ku fiican yahay sakas hadaad u doodid hadii doodaada mid oo suurtagal ay tahay oo mid oo lagu qancay tahay sida baa loo raacaya marka of course dadkii hataa garyaqaaniinta ahay arintan aad bay u kala fogeysay oo uma arkaan kuwaan u arkin in arintaas arin munaasab ay tahay
kuwa u arka arrinta iyada in arrin siyaasi ay tahay sida hadda aad u sheegtay in seef maraga loo soo dhiibay ay tahay laakiin sida hadda qoraalka loo qoray inaan u raacno unbaa fiican anaga intentionkii iyo wixii ka dambeeyay ma sheegi karna laakiin sida chief justice uu sheegaya waraaqda ku cadon ha waxaa waaye dadkan waa dad shaqadooda ay tahay inay sharci meel mariyaan ilaa hadda baarlamaankii inaas fariistay arrinta iyada kamana doodin sharcina ma marin ma ahayn yani doorashadii lasoo dhaafay jinsi ahaan inay hal jinsi ay 3 beeloodba 2 ay noqoto ma ahayn laakiin midda baraga ugu doodahay waxaa waaye waqti bay haysteen oo arrintan ka doodaan oo meel mariyaan sharci meel mariyaan marka qof shaqadiisa ay tahay inaas sharci mariyo oo arrintii sameyn waaye ayuu maraga hadda ka doodahaya marka waa wadaan ceelkeeda gebti waaye shaqadooda ay qabsan waayeen taa darteed in la wada diro waaye marka waxay keentay crisis in madaxa arintayda lislu wada gala laakiin David Maraga asaga ra'yiguu dhiibtay haddana maxkamad hoose ay arrintii joojisay of course waa laga doodi doonaa waqti badan marka wax loo soo dhiibay haata asaga ra'yigiisa haata sharci ahaan haata laakiin waxaa fiican in sharciga siduu u qoran yahay loo akhriyo siduu u qoran yahay loo raaca marka chief justice na hadee arrinta iyada waa arrin asku qaldamay ma ahan waa arrin sida jirtay ay u sheegtay waa u sheegay waay hadee constitutionka sida u qoran qodobka 256 aniga garyaqaan ma ihi laakiin marka hadda baraha bulshada wax lagu soo qoray iyo sida dooda loo sheegay chief justice arrin jirta soo dhigay marka madaxweynihii iyo dadkii la taliyaankiisa iyo looyadiisi ay ku xiranta marka arrinta iyada sidii u qaataan iyo reactionkoodii iyo sida ay ugu jawaabaan iyo wixii tallaabo hoos qaada madaxweynaha u bannaan tahay tallaabo kasta inuu qaado laakiin midda wadanka laga rabo waxaa waaye madaxweyne iyo midka raaciyadda oo tuulooyinka jooga labadaba sharciga isaga u qabtaa marka waa in madaxweyne sharci raacsan uu noqdo baarlamaanku waa in baarlamaan sharci ku dhisan ay noqoto maxkamadii waa in maxkamad sharci ku dhisan ay noqoto shayga kale xumaantana wada simi kara oo aniga xaqii difaaci kara adna xaqaada difaaci kara bulshadana xaqooda difaaci kara waxaa waaye sharciga waaye marka sharciga in la raaca in sidii la rabo loo fasira ma ahayn laakiin sis u yahay in loo fasira waa muhiim wadanka ayna faa'iido u tahay